cadow kale ma lahan Barcelona oo aanan ahayn taageerayaasha Real oo ugu dabaaldegay wadooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, Beledweyne, Cadaado iyo Gaalkacyo sidii in kooxdooda ay noqotay championska Yurub kadib markii laga soo ciribtiray kasii mid ahaanshaha Europa League kooxda reer Catalonia oo joogta fagaaraheedii Camp Nou. Si kastaba kooxdii Xavi waxayna tustay kubad macaanideeda aad kaga dhargaysaba daayahaada, laakiin kubad xaraga leh micno ma lahan waxaana tiri Frankfurt oo ku dilatay farsamo ciyaareed sal fadhiso lahayd oona noqonaysay ku dhufo ka dhaqaaq. waana la xeeladaystayba kooxdii Xavi oo lagu soo afjaray natiijada ciyaarta 3-2 oo ay aamini waayeen dadka la dhacsan kooxda reer Catalonia, waxaana laba ka mida goolashaasi ay ka yimideen Kostic, halka goolka kale uu ahaa darbo bannaanka dilinta ganaaxa uu ka toogtay Bore. sida ayayna ku soo dhamaatay rajo kasta oo laga lahaa koobka labaad ee ugu qaalisay Yurub in Barcelona ay ka soo dejiso fagaaraha Camp Nou, maadaama isla gagadeedii lagu tusay inay tahay kooxana lahayn itaal badan. weli Barcelona waxay u baahan tahay naanaash kale iyo in lagu soo kordhiyo dhiig cusub. taariikhduna waxayna leedahay kaliya 2 kooxood ayaa awood u yeeshay in Camp Nou xilli ciyaareedkan ay ku dhaliyaan 3 gool ama wax ka badan, waana Bayern Munchen iyo Frankfurt. Kostic isna wuxuu noqday laacibkii ugu horeeyay ee kulan tartamada Yuruba goolna ka dhaliyay goolna ku caawiyay Barcelona oo joogta Camp Nou tan iyo Juninho oo u ciyaarayay kooxda Lyon bishii Maaj ee 2009 kulan ka tirsan dhagacadaha qaaradda Yurub. taariikhda xun ee fasalkan ay qaadanayso Barcelona ayaana ahba in 8 gool looga dhaliyay meel ka baxsan xerada ganaaxa tartamada oo dhan, waana markii ugu horeysay tan iyo xilli ciyaareedkii 2005-2006. waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixintan ilaa iyo dhammaadkeeda. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.